barasaabka gobolka Saraar mudane Axmed Maxamed Xaashi oo weelinayo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaan la dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayre ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhismo aad u ballaaran kaas oo loo hirgeliyay ciidamada birmadka booliska ee gobolka Saraar. Dhismahani oo la filayo inuu xarun u noqdo guud ahaanba ciidamada birmadka ee ka howlgeli doona nabadgelyada gobolada bari ayaa waxaa dhismihiisa hirgeliyay shirkadda Caarsha Construction Company oo inta badan iyadu ka hirgelisa gobolka Saraar dhismayaal tayadoodu aad u sareyso. waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay Cabdicasiis Salmaan Baashi oo ku hadlayay afka shirkadaasi. waxaan maanta ku wareejinayaa ciidanka booliska saldhigii ciidanka birmadka gobolka Saraar ee aan anagu dhisaynay hadaan nahay shirkadda wuxuu ka kooban yahay 4 hoolo hurdo 3 xafiis 2 store masaajidadii shii kale ee loogu talagalay shirarka iyo xafiisyada. waxa aan maanta ku wareejinayaa taliyaha qaybta booliska oo u soo igmaday taliyaha guud ciidanka qaranka iyo gudoomiyaha gobolka oo aan idin sheegaynaa in anaga shirkad ahaan ay naga go'an tahay inaan ka shaqeyno horumarinta iyo dib u dhiska dalka haddii ay tahay mid anaga jeebka iyaga iyo haddii ay tahay mid contract aan qaadanaba. sidoo kale qaar ka mid ah cuqaasha iyo garadka gobolka Saraar ayaa soo dhaweeyay furitaanka dhismahani loo dhisayo ciidamada birmadka ee gobolka Saraar waxayna tilmaameen inay ka qayb qaadan doonto adkeynta nabadgelyada ee guud ahaanba gobolada bariga. aad iyo aad bay maanta sharaf noogu tahay hadaan nahay odayaasha gobolka Saraar ee deegaankan anoo ka mid ah in 9 bisha 7 2018 ay suurta gasho in xafiiska birmadka ee gobolada bariga iminka deegaanka ugu weyn buu noqonayaa waan maleynayaa in laga hirgeliyay gobolka Saraar. waa qiimo aad iyo aad bay u weyn bay noogu fadhidaa xeradan maanta halkan laga furay waayo gobolku wuxuu u baahan yahay amni iyo nabadgelyo ayuga gobolada bari oo dhan laga sambal gareeyo. run ahaantii waxaanu kaloo halkan aan aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidanka qaranka. ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolkani gaashaan la dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayre ayaa tilmaamay in xaruntani haatan la sii geeyay gaadiid iyo ciidanku meel gaar ah oo ka sii howlgala. waxayna sheegeen in taliska guud ee ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland laga sugayo ciidan aad u tiro badan kaas oo la filayo inuu ka howlgalo waxna ka qabto guud ahaanba adkeynta nabadgelyada ee guud ahaanba gobolada bariga Soomaaliland. aad bay farxad noogu tahay furitaanka meeshan waxa weeyaan waa yeelka gobolka Saraar in badan bay ka hadlayeen nabadgelyada waa suurta gashay in maanta xaruntii weyneed la furo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noqoto meeshii nabadgelyada gobolada bariga oo dhan laga ilaalin lahaa inay halkaas noqoto. anigoo ka wakiila taliyaha ciidanka booliska waxaan ugu horeyn salaan uga sidaa shirkadda Caarsha Construction Company xaruntan ay dhistay ee loogu talagalay ciidanka birmadka ee gobolada bari. xarun bay u noqonaysaa gobolada bari oo waa xarun laga hagi doono nabadgelyada gobolada bari. aanu ku furaynayna waa keenay wixii kale taliyaha ciidanka ka sugaynaa. goobta aynu maanta furanayno waa meel dhameystiran oo ciidankeedii leh la soo diyaariyay oo gaadiidkeedii la soo diyaariyay oo shirkadda dhistay ay si fiican ay ugu farayareysatay dhismaheeda wayna ka arkayna insha Allah ta'ala wax aad iyo aad ban cid kasta oo gacan ka geysatay ugu mahad celinayaa shirkadda lafteeda waan mahad celinayaa. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Aynaba.